بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إن شاء الله waxaan sii wadi doonaa casharkii tafsiirka qur-aanka ahaa. casharkii inoogu dambeeyey waxaan ku istaagnay aayadda 64 ee suuratu naxli ka mid ah. marka casharkeena maanta wuxuu ka bilaabmi doonaa aayadda 65 ama 65 ee min asuurati nafsiha, suuratu naxli, yani isla suuraddaas suuratu naxli ah. marka insha allah aayaadka aan fasiri doono ayaan marka hore akrin doonaa, kadibna insha allah tafsiirka ayaan marka ku xijin doonaa insha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda 5 ee suurat annaxl ka mid a aayaadka caawa waa aayado aada iyo aada u cajab badan oo runtii tilmaami doona nicmooyinka ilaahay subxaanahu watacaala uu u nicmeeyey bani aadamka iyo galladda ilaahay subxaanahu watacaala uu u galay iyo sida ay badankoodu dadka ay ugu shariig yeeleen alle subxaanahu watacaala oo nicmooyinkaa faraha badan halkii ka shukrin lahaayeen oo ilaahay ku aqoonsan lahaayeen oo keligii ku caabudi lahaayeen ay ilaahay wax garab dhigeen oo ay wax la caabudeen oo shariig ay u yeelaan waxyaabahaas oo dhan aan arki doonaa waxaan arki doonaa madaahir ka mid ah min madaahiri qudrati illaahi subxaanahu watacaala awoodda ilaahay subxaanahu watacaala tusaalooyin ka mid ah iyo ilaahay awooddaasi iyo khalqigii uuna abuuray iyo khalqiga waxyaabaha aan koonkan dhexdii yaalle uu noo abuuray darteed inuu mudan yahay keligii in cibaadada loo khaalis yeelo waxaan kaloo arki doonaa in ilaahay subxaanahu watacaala uu tusaalooyin aan wax ku fahamno oo aan ku garanno xaqa uu inoo keeni doono yacni dadka ilaahay wax garab dhigay ee wax la wadaajiyey waxaan waxba awoodi karin oo adduunkan aan waxba ku lahayn alle garab dhigay lana caabuday tusaalooyinkooda ayaan arki doonaa marka aada iyo aad baa runtii darsigu wuxuu u yahay darsi aada u baahan in loo fahmo oo loo dhuuxo oo runtiina yacni laga qaato cilmi fara badan iyo muxuu aha iimaanka qofkaba uu ku kordho marka ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay wallahu anzala min aلsamaaءi maa wallahu alle anzala waa uu dejiyey min aلsamaa'i samada xaggeedii wuxuu kasoo dejiyey maa-an biyo ayuu alle kasoo dejiyey samada xaggeeda oo fa axyaa alle waa nooleeyey bihi bidalika almaa biyahaas uu soo dejiyey alarda dhulkiibuu ku nooleeyey bacda mowtihaa geerideedii dabadeed dhulka markii uu meyd ahaa oo kale ayaa ilaahay samada roob ka soo diray samadaas markii roobka uu ka yimid dhulkiibaa ku noolaaday
walaalayaal garanaysaan dhulka markuu abaar yahay geeduhu way yani qalalaan, yani cawsku waa burburaa, yani adduunkii o dhan wuxuu isu bedelaa wax indhaha qaban karin. ilaahay baa subxaana wa tacaala roob ka keenaya samada, yani fadligiisa. roobkaasi marka waxaa dhacaysa in biyihii ay galaan dhulka, kadibna dhirtii ay soo baxdo, nabaadkii dhulka lagu riday uu soo baxo, oo dhulkii dhan uu cagaarto, oo bani aadamkii uu farxo. ma aragtay waa nicmadaas iyo sidaas ilaahay uu wax u maamulo. ilaahay baa marka soo nooleeyey dhulkii markii uu sidii mayid oo kale u ahaa. ilaahay baa roob kusoo dejiyey, roobkaas sababtiisana kusoo nooleeyey wey. markaasay dadkii ku farxeen. fandur ilaa aathaari raxmati illaahi kayfa yuxyi alarda bacda mowtiha ina dalika lamuxyi lmowta wahuwa calaa kulli shayin qadiir. ilaahay sidaas uu u nooleeyey oo sidaas uu soo saaray dhirtaasi, ama muxuu ahaa dhulkaasi baaba'sanaa markii roobka ku da-ay dhirtiisa ay usoo baxday oo u noolaaday. sidaas si lamid abaa kuwa dhintayna ilaahay usoo saaraa. marka halkaa waxaa la sugayaa albacthu, in ilaahay dadka uu soo saarayo, oo arrinka in lasi soo saaro uusan ahayn wax culays badan, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu awoodo. haddii ay ilaahay dhulkan oo baaba'san roob uu kusoo dejiyey oo uu soo nooleeyey, yani mayd ahaa, markuu mayd ahaa kadib wax nool ka dhigay. sidoo kale bani aadamka markay dhintaan ee qubuurtoodii ku baaba-aanna ilaahay waa uu soo saari karaa lilxisaabi waljazaa buu usoo saarayaa wey. marka ilaahay wuxuu yidhi wallahu alle anzala waa soo dejiyey min assamaa'i, samada xaggeedii maa-an biyuu kasoo dejiyey, oo fa axyaa waa nooleeyey ilaahay bihi bidalika almaa, biyahaasi wuxuu ku nooleeyey alarda dhulkiibuu ku nooleeyey bacda mowtiha markay dhimatay kadib ayuu ku nooleeyey abaar ay yani dhulkii abaar uu yani maaragtay asiibtay oo geedihii ay qallaleen. ina fi dalika yani nooleyntaas ilaahay uu nooleeyey dhirtaas markay baaba-day kadib yani abaarowday oo haddana ay noqotay wax nooloo cagaaran oo lagu farxo, la aayatan aayad baa ku sugan, liqowmin qolo ugu sugan, yasmacuuna waanada maqlaayo wey. qolo haddii la waaniyo waanada maqlaayo aayad baa ugu sugan, darsi ay wax ku bartaan ay wax ku qaataan ayaa ugu sugan. sidoo kale waxay aayaddu tilmaamaysaa sida markii ilaahay roob uu soo dejiyo dhulkoo abaara uu ugu noolaado, ayaa waxyiga ilaahay uu soo diro rusushiisa uu la soo dirana quluubta ay ugu noolaataa. quluubta hadday diinta ilaahay weydo way dhimataa, way baaba-aysaa, wax dhintay bay noqotaa aan qeymo lahayn. laakiin markii diinta ilaahay ay fahamto, markii ilaaheedii ay garato, markay ilaaheedii ay caabudo, markay fahamto danta loo abuuray iyo meeshay u socoto, markaasay quluubtii noolaataa. sida ilaahay roobka ugu nooleeyay dhulka ayaa waxyiga iyo diintana quluubta dadka ugu nooleeyaa wey. haddii qofka diintiisu ay baaba-do, ama diintii uu fahmi waayo, ama diintii uu inkiro, qalbigiisu waa dhintay wey. qofkaasi waa qof aan noolayn. aw man kaana maytan fa axyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mathaluhu fi ظulumaat laysa bikhaarijin minha. ilahay wuxuu tilmaamayaa yani laba qof oo midna gaal u ahaa, yani markii hore gaal ahaa oo kufri ku jiray, oon diin waxba ka garanaynin, oo ilaahay wax yani muxuu ahaa aan caabudaynin, oo ilaahay wax la wadaajiyo, mayid buu ahaa. markaasaa alle soo nooleeyey, markaasaa ilaahay wuxuu siiyey nuur uu iftiin iyo waxyi iyo diin uu ku noolaado, oo maaragtay xaq uu raaco. markaasaa qalbigiis uu noolaaday. mayd buu ahaa markaasuu soo noolaaday. ma la mid baa markii uu maydka ahaa oo kale? la mid ma aha wey. ina fi dalika nooleynta ilaahay uu nooleeyey dhulka uu ku nooleeyey roobkii uu kusoo dejiyey aayad baa ugu sugan liqowmin yasmacuun. macnaheedu waxay tahay inuu ilaahay soo saari kara dadka markay dhinteenna yani way u daliishan karaan. marka dadka caqliga leh ee wax fahmaya ee waanada alle uu soo dejiyey maqlaye, kuwaasay aayad u tahay wey. wa ina lakum waxaa idinkugu sugan fi lancaami, xoolaha waxaa idinkugu sugan. alancaam waxaa la yihahdaa alibilu walbaqaru walghanam, geela iyo ariga iyo lo-da, kuwaas ancaam la yihahda way. ancaamta waxaa idinkugu sugan lacibratan, cibro qaadasha idinkugu sugan. waxaad ku cibro qaadataan baa idinku sugan xoolaha. laakiin bani aadamku hadduusan fakeraynin oo uuna cabayo uu cunayo keliya, yani wuxuu soo baxaya isaga laftiisaba yani xoolihii noqonayo kale, amaba kasii laydanayo.
laakiin xoolaha haddaad u fiirsato ilaahay idin sakhiray idin layliyey caanahooda aada cabtaan hilbooda aada cuntaan yani waxaa idinku sugan darsi baa idinku sugan kow ilahay wuxuu yihi nusqiikum waan idin cabsiinaa waa idinka cabsiinaa oo idin waraabinaa mima fii butuunihi ay min bacdi maa fii butuunihi uurku jirkooda gudihiisa wixii ahaaday qaar ka mid a ayaan wax idinka cabsiinaa min bayni farthin uus dhexdii iyo wadamin dhiig dhexdii ayaan labanan caano idinka cabsiinaa caanahaasoo khaalisan saafi ah saa'iqan soconaya oo dhunta maraya lishaaribiina kuwa cabaya ay maaragtay yani u soconaya oo wax dhibaya oo dhunta matalan istaagaya ama aymayna wadi karin cabitaankiisa aynan ahayne ay macaansanayaan markay cabayaan maa kasoo saarnaa buu yihi ilahi subxana wa tacaala alla subxana wa tacala ayaddan wuxuu noo tilmaamayaa wa ina lakum ayuha nnaas dadoo waxaa idinkugu sugan fi lancaami xoolaha waxaa idinkugu sugan geela ariga yani idaha yani muxuu aha lo-da lacibratan lacidatan waana qaadasha idinku sugan dadka caqliga le waxaa ugu sugan cilmi baa ugu sugan waxa weeye cilmigaasi ilaahay subxaana wa tacaala siduu idinku layliyey iyo qudradiisa waxaana ka mid ah laylintaasi waxyaabahu ilahay idinka siiyey nusqiikum ilahay wuxuu yihi waxaan idin waraabinaa mima fii butuunihi ay nusqiikum min bacdi aladii fii butuuni hadi lancaam yacni xoolahaasi uurku jirkooda uurku jirkooda qaar ka mid ah waxaan idinka waraabinaa min bayni fartin wa damin labanan khaalisa marka mima fii butuunihida yani uurku jirka butuunihida waxay unoqonaysaa ay butuuni hadi lancaam bibutuuni hadi lancaam fi suurati waxaad kusoo marteen almu'minuuna nusqiikum mima fii butuuniha mima fii butuuniha marka yani xoolaha marka yani xagga luqadda macnaha waxaa arkaysa maaragtay tudakaru wa tu'anath marna in lab laga dhigayo marna dhidig laga dhigayo mima fii butuunihi hadda marka waa waxaa laga dhigay mudakar yani ancaamtaasi butuuntiisa oo maaragtay uurku jirkiisa waxa alla idinka waraabinay buu yihi min bayni farthin min bayni ajzaa'i lfarthi uus qaybihiisa dhexdii iyo wadamin dhiig qaybihii dhexdii ayaan labanan caano idinka waraabinay khaalisan saafi ah subxaana allah yacni fiiri xayawaanka markuu uu calafka u cuno oo uu daaqo cawska oo uu cawskii uurkiisa u galo cawskii marka wuxuu u qeybsamaa qeyb yacni ma aragtay jirkiisii gala oo ma aragtay dhiigga raaca iyo qeyb dabcan la saaro oo banaanka marka qeybtaasi oo ma aragtay jirkii gashay oo calafkii ah iyo dhiiggii oo la xididada la soconayay dhexdoodii baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka soo saaraa caano cad oon uusna ahayn dhiigna aan ahayn oo markaad cabaysid uuskii iyo wax lamida uusan ka uraynin dhiigna uusan ka dhadhamaynin oo macaan oo aada yani wanaagsan sidaa darteed waxaad arkaysaa caanihii iyo wixii yani xididadii dhiigga ee neefka ee jirkiisa xubnihiisa oo dhan isu maraayay ilaa iyo candhada neefka muxuu ahaa neefkaasi la lisanayo ay yimaadaan ayaa waxaa kasoo dhexbaxaya candhadii waxaad moodaysa inay warshad filtiraaraynayso oo kala soocayso dhiiggii iyo uuskii markaas dhexdooda ay kasoo baxayaan caano markii la liso caano cad oo aada iyo aada u macaan aada ka lisanaysaan aad ka cabaysaan oo nafaqo oo dhan ay ku jirto oo noocyadii ay nafaqada aad u baahan tihiin oo dhan aad ka helaysaan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala idin siiye wey nusqiikum waanu idin waraabinay mima fii butuunihi yani butuuni hadi lancaam ancaamtaasi butuunteeda min bayni fartin uus qaybihiisa yani qaybaha yani uuska iyo wadamin dhiigga dhexdoodii ayaa labanan caano idinka waraabinay khaalisan saafi ah oo aan uusna lahayn dhiigna lahayn saa'iqan soconaya oo yani si fiican u maraya dhuunta lishaaribiina kuwa cabaya ay ma aragtay macaansanayaan wey wa min thamaraati nakhiili
ونسقيكم وان إذن ورابني من ثمرات النخيل تمرت مره ذين وحن إذن كورابني إيه والأنعام والأعناب عنبك تمرت يعني مره ذنا وحن إذن وحبان إذن كورابني وي يعني إيجنا ومن ثمرات النخيل يعني ثمارته تمرتنا وحن إذن كورابني حق هذا إيه والأعناب عنبك وحن إذن كورابني يعني واحد عبتاوي عنبك عصير بالغا ميرا sidoo kale timirta lafteeda waa laga yani sameyn karaa wax la cabo marka wuxuu kaloo ilaahay ku daray tattakhiduuna waad samaysanaysaan minhu ay min an-nakhiil wal-a'naabi kaa la soo sheegay oo timirta iyo cinabka waxaad ka dhiganaysaan sakaran mid lagu sakhraamaad ka dhiganaysaan iyo wa risqan risqi baad ka samaysanaysaan xasanan oo wanaagsan yani sakarku khamriga wey تتخذون منه وحد كسم سنيسا منه من المذكور كان لصو شيغي سكرا مد لغو سخرامو وخمريا ورزقا رزق حسنا وناكسا سيدة تمرت يزبيب كيوح لمدا مركا عبد الله بن عباس وحير الرزق الحسن رزق حسن كما ما أحل من ثمرتها يعني التمرت عنب كتمارت دوحي لقى حلاليوي سكري جنا ما حرم من ثمرتها مركي خمر لو بدلوي مرك آيات وحيت المامسة إلهي سبحانه وتعالى وليهي ثمار تاس إلهي دون كل نعمي قارن واحد يعني رزق ولا سنبت كسر ميستان قارن واحد كسر خرانتان بات كسر ميستان مرك آيات وحي هيك أنت لحرمين خمرك أيت يا إلهي سبحانه وتعالى ونوت الماما يدتك قارن إني خمرك نكتان لكن إشارة وحكوجرت آيات خمر وحفي عن نصن أهين سكرا إيو ورزقا حسنا باليدي waxa lagu sakhraamo iyo risqi wanaagsan marka maxay leeyahay khamriga tahriimkiisa ama joojintiisu wuxuu soo maray maraaxil ama qaabab oo looga celiyay maadaama ay aad khamriga u cabi jireen tartiib baa ma artay looga marba aayado soo degayeen ila aayadii ugu dambeysay fi suurati al-maa'ida ilaahi subhanahu wa ta'ala وصود جيويري إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون مركز خمرك يعني كل جيل جوجي مركز آيات وحيت المامس أنت خمرك لا حرمن يا إلهي نوت الماما يا إني دتكو يعني كي يشان miraha timirta iyo canabka ay ka yeeshaan khamri inay ka sameeyaan dadka qaar ama dadka qaar risqi xasana zabiib iyo miro la cuno iyo waxyaabo noocaas oo kale cunta ay ka yeeshaan ayu Allah subhanahu wa ta'ala noo tilmaamaya inna fi dhalika arrinka la soo sheegay wiil Allah subhanahu wa ta'ala yani waxyaabahaas ay ilaahay u idin sakhiray timirta iyo canabka inaad mirahoodii aad isticmaashaan oo noocyo kala duwan cunto aad u adeegsataan la aayad baa ku sugan liqawmin qolo yacqiluuna wax garanaya buu ilaahi subxaanahu wa tacaala yacni qolo wax garanaysa ayuu ugu sugan yahay yani ma aragtay inay ku fekeraan ibnu kathiir wuxuu yidhi wanaasaba dikru lcaqli huna liannahu ashrafu ma fi linsaan halkan caqliga liqawmin yacqiluuna ilaahay wuxuu u yidhi waxay munaasib u tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu bani aadamku uu siiyey caqliga ugu fiican sidaa darteed ayaa ilaahay xarimay ummadda uu ka xarimay waxyaabaha caqliga dooriya ama maandooriyaasha sidaa darteed ilaahay wuxuu yidhi inna fi dhalika la aayatan liqawmin yacqiluun yacni caqligaas ilaahay idin siiyey oo wax lagu garto oo waxa fiican iyo waxa lagu kala ogaado wax maandooriya ha u adeegsanina khamri iyo wax la mid ah ku bedelina معناها سيدا صاد مودا إنه لي إنه كثير آيات مناسبة كدحيس لقوم يعقلون يعني إلهي أبو ختمي إلي ما أردت أرنتاسي أي تهي وأوحى ربك إلى النحل إلهي وحير وأوحى ووحيوذي ربك ربك ووحيوذي إلى النحل شنذي بوحيوذي محو وحيوذي أن اتخذي ياله من الجبال بورها حقوذي بيوتا قريكا ياله ومن الشجر جيدها حقوذنا بيوتا قريكا ياله ومما كي حقينا قريكا ياله يعرشون أيضتكم للصيان ما أركتي وأوحى ربك يعني أوحى ذن يعني وحيه ما أركتي
يعني وحي وحالي هذا مثلا معانيdiisa يعني markaan leenahay مثلا qur'aanku waa waxyi ilaahay subxaana watacaala marka rususha ilaahay markuu wax u waxyoonayo oo yani ma aragtay wax usoo dirayo diin sida qur'aanka oo kale sida injiil oo kale nabi ciise loo soo dhiibay kaas waxyigaas waa waxyiga ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisa uu usoo yani ma aragtay uu dirayo oo ummad u dirayo oo kitaab loo dhiibayo ama malag loo soo dirayo ka waa waxyiga ma aragtay يعني معنيهisa يعني dadku ay yaqaanaan ama waxyiga xagga luqada ama sida macaanida kale loo isticmaalo waxa weeye ilhaam wey shaygan waa lagu ilhaamiyey sidaasaa maaragtay lagu dhaqaajiyey sida wa awxaa rabbuka ilaahay wuxuu ku ilhaamiyey wuxuu ku diray wuxuu garansiiyey macnaha waa sidaas maaha shinida wax lagu soo dejiyey oo yani kitaab lagu dejiyey maaha macneedu وأوحى ربك ربك وأوحيوذي يعني الإلهام هنا الإلهام والهداية وكهنونيوي إلى النحل سيدوك الآية في سورة الشعراء وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه يا كمذا يعني نبي الله موسى يدي وحن كهنونيني إلى النوجسه مركا وأوحى ربك وكهنوني إلى النحل شندي حقه أن اتخذي إن يالته من الجبال بورها كركود إني كيالته بيوتا قرية إني كيالته من الجبال بيوتا إني قرية كنستوي بورها كركودا ما عرفتي بيوت مرك إلهي ما عرفت كهنوني إني لستو قرية أو لحجيس هو الله يابيس هندسة دي يعني ما عرفت قابك استعمال الله يابيس قروحضة قريها إلي سنيسو بيوت بي كل سنة مرك بورها كركودا ومن الشجر geedaha korkoodan inay guryo ka dhisato ayaan ku hanuuninay iyo waa mima waxa yani kii xaggii yacrishuna dadku ay dhisayaan meelaha ay dadku u dhiseen si ay markaasi malabkii uga qaataan ayagana yani markaasi meeshii ku degaysa guryo ka samaysanaysa saas ba Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waa ku hanuuninay ma aragtay shay yani muxuu shinadii waa ku hanuuninay buu yiri thumma dabadeedna ilaahay wuxuu yiri waxaan ku hanuuninay oo kale kuli shinadii wey min kulli thamaraati miraha dhammaantood miro oo dhan wax ka cun yacni ubaxa oo maaragtay geedaha wax ka cun miraha wax ka cun midda kharaar iyo midda macaan iyo midda dhanaan wax walbay wax ka cunaysaa haddana ilaahay subxaana wa tacaala wixii ka soo baxay caloosheedii wuxuu ka dhigaa wax macaan oo malaba ma aragtay ayuu alla subxaana wa tacala uu ka dhigaa huma kulii cun min kulli thamaraati miro dhammaantood xaggood faslukii qaad baa layidhi shinidii mar oo qaad subula rabbiki rabbigaa wadooyinkiisi qaad dulala xaal ay tahay wadooyinkaasi kuwa sakhiran oo layliyan oo adiga ku layliyan yacni aadan ka lumaynin meesha marto iyo markaad kasoo laabanayso ilaahay baa u sakhiraay meesha ay marayso oo wax kasoo cunayso haddana waxay kusoo laabanaysaa carshaanteedii meeshii wax samaynaysaa malabkii marka ilaahay wuxuu leey faslukii subula rabbiki mar oo qaad wadooyinka rabbigaa dulula xaal ay wadooyinkaasi tahay yani mid layliyan oo yani sakhiran oo xag alle lagaaga sakhiray oo aadan ka lumaynin sii socod iyo kasoo socodba yakhruju waxaa kasoo baxaya min butuuniha ay min butuuni hadihi yani annaxl naxligaas ama shinidaasi caloosheedii waxaa kasoo baxaya sharaabun cabitaan sharaabkaasoo mukhtalifun uu yani kala duwan yahay alwaanuhu midabadiisa fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan shifaaun caafimaad linnaasi dadka ugu sugan marka ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyahay malabkaasi calooshoodii kasoo baxaya shinida yani ilaahay wuxuu ku daray daawo dadka ay ku daawoobaan cudurada qaar uga daawoobaan ama cudurada haya uga daawoobaan waa haddii ictiqaadkuna uu dabcan qofku ictiqaadiyo inuu yani sidaas ilaahay uu sheegay inuu ku caafimaadayo ilaahayna uu weydiisto caafimaadka marka yakhruju yani min butuuniha sharaabun mukhtalifun alwaanuhu midabadiisu ay iskhilaafsan yihiin yani sharaab yani malab cad malab cas malab madow oo ay ku xiran tahay meesha ay daaqday iyo nooca ay daaqday waxyaabahaasi maaragtay shinida fiihi shifaaun linnaas ina fi dalika arrinka isaga ah oo ilaahay uu ka soo saaray caloosheedii malabkaasi cabitaankaasi
caafimaadka ilaahay uu ku daray lacibratan la aayatan baa ku sugan aayad liqowmin qolo yatafakkaruuna ka fikiraya awoodda ilaahay weyninkeeda iyo sancadiisii maaragtay cajaa'ibteeda ku fikiraya ay ugu sugan tahay wey. wallahu alle khalaqa waa abuuray kum idinka, ilaahay baa idin abuuray oo awooddiisii idinka abuuray markaad ahaydeen kuwa aan jirin ka horo. markii hore waxaad ahaydeen waxaan jirin baad ahaydeen, ma aydan joogi jirin adduunkan. hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura, mar aydan jirin oo aydan joogin adduunkan baa jirtay. marka wallahu khalaqakum, allah idin abuuray, uma dabadeedna yatawafaakum, ilaahay waa uu idin oofsanayaa, yacni waa idin dilayaa wey, cinda inqidaa'i aajaalikum, waqtigiina markuu dhammaado. qof loogu talagalay adduunkan inuu iska joogo ma jiro. ilahay wuxuu leeyay wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afa in mitta fahum lkhaaliduun kulu nafsin daa'iqat lmowt wanabluukum bishari waalkhayri fitna wa ilayna turjacuun. looguma talagelin qofna inuu noolaado adduunkan iska joogo. ma aragtay yacni adduunkan mar baad timid adigoo yar oo daciifa oo taag daran, waad kortay, waad xoogeysatay, dhalinyaraad noqotay, caqliba oo kuu kordhay, yacni cabaar baad joogtay, haddana waad sii weynaatay, haddiiba ilaahay cumrigu ku siiyo, waad soo daciiftay, waad sii maaragtay taag daraysay, akhiiran waad dhimatay. marka waa sidaas. marka ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay baa idin abuuray uma yatawafaakum, haddana idin oofsanayo wey. allahu akbar. isagaa marka arrinkiina gacantiisa ku jira, isagaa idin abuuray, ujeedo idin abuuray inaad caabudaan ood aqoonsataan oo ad isaga aad yani u noqotaan addoomo saalixiina ayuu idin abuuray, kadibna abaal wanaagsan uu idin siiyo. marka uma yatawafaakum, ilaahay waa uu idin oofsanayaa wey markay ajashiina dhammaato. wa minkum waxaa idin ka mida dadow man qolaa idin ka mid a yuraddu loo celinayo ilaa ardali lcumur, da-da ama cumriga meesha ugu xun loo celiya. yani waxaa idin ka mid dad yani cumriga meesha ugu dulaysan ama ugu liidata ama ugu xun loo celiyo. macnaheedu waxa weeye qof gaaraya da uu gaaro inuu isku dardarmo oo yani hataataqo oo yani hadalkiis aan la fahmin, oo caqligiis isku darmo, oo wuxuu sameynay usan garanayn, oo wax walbaba uu baahan yahay sidii caruurta ilmaha markay dhasheen ay ahaayeen oo waxbayna garanaynin, oo in la caawiyo mooyaane yani najaasada laga dhaqo, muxuu ahaa wax la taro, loo khidmeeyo, sidii oo kale wuu ku noqonayaa. yani jirkii xoogga badnaa ee quwada badnaa waa sii baaba-ay oo wuxuu noqday wax taag daran oo aan waxba maaragtay yani xamili karin. caqligii uu ku kibray ama muxuu ahaa wax ku soo saari jiray ama cilmigii iyo wixii uu yaqaanay way sii baaba-een. waxa weeyaan xusuustii way baaba-day, wuxuu yaqaanay tirtirme. marka ilaa ardali lcumr likay laa yaclama, inuusan ogaanin darteed, bacda cilmin markuu wax ogaa dabadeed shay-an uusan waxba ogaanin. waxaa da-daa loogu celinayaa liyansaa maa yaclam fayushbiha aطifla fi nuqsaani alquwati waalcaql, inuu markaa la mid noqdo ilmihii hadda dhashay xagga daciifnimada jirka iyo xagga caqligaba. yani in marka qofkii yani caalimka ahaa ama brofesorka ahaa ama madaxweynaha ahaa ama maalqabeenka ahaa oo ummaddu ka dambeysay ayaa wuxuu noqonayaa qof maaragtay yani la rogrogo oo maaragtay muxua najaasada laga qaado, wax uu ku hadlayo aan la fahmin, wuxuu raba isaga hadlo, muxuu ahaa wahaakada. caqligii iyo jismigiiba uu daciifo. likay laa yaclama, si uusan maaragtay uusan u ogaanin ayaa loogu celiyaa da-daasi yani haramka bacda cilmin aqoon dabadeed shay-an uusan waxba u ogaanin. ina allaha ilaahay caliimun mid u cilmi badan wey adoom abuurkiisa, qadiirun awoodo wax walba awoodo wey. marka ilaahay subxana wa tacaala yani isagaa awoodo. dadka qaarna waxay ku dhintaan da-yar, dadka qaarna waxay ku dhintaan meel dhexe, dadka qaarna waxay ku dhintaan meel yani da- dambe, qaarna way maaragtay asaasaqaas iyo da-daa weyn waxba ayna kala garanaynin ayay gaaraan. marka oo maaragtay dadku ay ku runtii loogu rafaado, ayaguna ay ku rafaadaan. marka sidaa darteed ayaa maaragtay
ilaahay subxana wa tacala wuxuu leey qal caqligiisi iyo wixii uu yaqaanay oo dhan ay u tagaan sidaa darteed ayaa ma aragtay bani aadamku cala alaqal yani waxaan leeyahay ugu dambeynta bani aadamku yani waxay noqotaa inay markaas ama ha gaaro da yani uu ku asaasaqo ama da hore ha ku dhintee inay wada dhintaan cikrima ayaa wuxuu yidhi baa la yihahdaa man qara'a alqur'aana lam yuradda ilaa ardali lcumur qofka qur-aanka akriya ee qur-aanka jecel ee qur-aanka xifdiya ee ahlu qur-aanka ah looma celiyo da-daasi asaasaqa oo dadku caqligooda isku dardarmo oo ma aragtay yani ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu oofsadaa isagoo caqligiisa xay yahay taam yahay oo ma aragtay yani u dhan yahay wahada min barakati wa fadli lqur'aan ma aragtay yani qofka ilaahay kitaabkiisa jecel ee xambaara ee akriya ee isku howla walidalika yani dadku muslimiintu waa inay ku dadaalaan kitaabka ilahi subxana wa tacala xataa haddayna xifdinin akriska inay ku badiyaan oy jeclaadaan oy habeenay dharaan ay ku dadaalaan insha allah wallahu fadala bacdakum calaa bacd wallahu ilaahay fadala waa kala fadilay bacdakum qaarkiin ilaahay waa ka fadilay waa ka saramariyey calaa bacdin qaarka kale uu ka saramariyey fi risqi xagga risqiguu kaga saramariyey waxaa idinka mid a kuwa xoolo leh iyo kuwa aan xoolo lahayn yani kuwa ma aragtay cilmi leh kuwa jaahiliinah kuwa ma aragtay yani arsaaqka iyo wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala uu bixiyo dadka ilaahay waa ku kala fadilay haddaan matalan xagga risqiga kasoo qaadno xoolihii iyo wixii ilaahay bani aadamkan uu siiyey iyo maalka ilaahay subxana wa tacaala uu siiyey ilahay wuxuu yihi wallahu ilaahay fadala bacdakum qaarkiin waa fadilay calaa bacdin qaarka kale waa ka fadilay waa ka saramariyey fi risqi risqiga ilahay waa kaga saramariyey yacni hani wey kan waa mid hodana kaasna waa faqiir kan waa mid wax le kanna waa mid aan waxba haysan oo isaga laftirkiisa shaqaalo oo qofkaasi u shaqeeyay ilahay wuxuu yihi fama aladiina ma ayna ahaanin kuwii fudiluu la fadli siiyey kuwii fadliga la siiyey ee risqigooda loo waasiciyey ee hodanka laga dhigay ma ayna ahaanin biraadii kuwa u celiyey risqihim risqigii la siiyey kuwa u celiya ma aynan ahaanin calaa maa malakat aymaanuhum kuwa gacantoodii ay milkisay kuwa risqigii u celiya ma aynan ahaanin yacni shaqaalahoodii kuwa risqigoodii siiya ma aynan ahaanin oo fahum markaasi ayagu fiihi risqigii dhexdiisa sawaa-un kuwo ku siman ay noqdaan marka mithaalka macnihiisu waa maxay mithaalka macnihiisu waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala dadka waa kala fadilay qaarna waa hodan qaarna waa fuqaro marka ilaahay wuxuu leeyahy kuwa hodanka ee xoolaha ilaahay siiyey ee shaqaalaha ay u shaqeeyaan ama dadka ay muxuu ahaa mamluukiin oo iyagi yani addoomo u ah u joogaan ma aha xoolahoodii kuwa siinayo shaqaalahoodii ama dadkii ay addoomanka u ahayeen oo markaasi ay yidhaahdaan xoolahan way naga dhexeeyaan aniga adiga waan wada leenahay sida aan anigu u tasarufayo ama yani u isticmaal sidaa kuwa samaynayo ma tihidin buu yidhi maxaa yeelay ma doonaysaan maalkiina in laydinla wadaago macnaha waa saas xoolihiina in laydinla wadaago ma rabtaan kanna inuu shaqaalo ku ahaado hoostaada uu joogo baad rabtaan haddana idinkoon ogolayn nicmadii ilaahay idin siiyey oo adiga markii hore aadan yani xaqiiqatan mulkigeeda aadan lahayn oo ilaahay uu ku siiyey kaasna ilaahay uu faqiir uu ka dhigay ayaydan ogolayn inaad wadaagtaan oo aada wadaagsi ku noolaataan siday ku dhacday marka in allihii idin abuuray oo idin khalqay oo nicmada idin siiyey inaad u ogolaataan inaad wax la wadaajisaan macnaha waa sidaas say ku dhici kartaa marka inaad isagii wax la wadaajisaan oo aada wax la caabudaan oo aada shariik u yeeshaan idinkuma ma ogolidin in wax laydinla wadaageen xoolihii ilaahay idin siiyey bay diidan tihiin inaad ma aragtay aad dadka ay idinla wadaagaan sideesay markaas ilaahay ula wadaajinaysaan addoomankiisii maamulkiisii iyo khalqigiisii isaguu abuuray aada wax uga siinaysaan oo aada uga baryaysaan ilaahay keyrkii inuu risqi idin siiyo inuu iwlaad idin siiyo inuu kurbada idinka qaado oo aada ilaahay u garab dhigaysaan say u dhacday arrintaas ilaahay wuxuu yidhi afa binicmati illaah war ma nicmadii ilaahay bay yajxaduuna diidayaan nicmadii ilaahay miyay diidayaan buu ilaahi subxana wa tacaala macnaheedu waxay ka dhigan tahay istifhaamku waa inkaariyo ayushrikuuna macahu hayrah ma ilaahay bay wax la wadaajinaya isagoo kii wax nicmeeyey ah isagaa nicmada allay ka timid marka alle inay u aqoonsadaan miyay diidayaan ilaahay inay u aqoonsadaan
miyay diidan yihiin may u aqoonsadaan hadday u aqoonsadaan samay ugu shukriyaan afa binicmati illaahi ilaahay nicmadii miyay yajxaduuna diidayaan inay alla ku aqoonsadaan wallahu ilaahay jacala waa yeelay lakum idinka min anfusikum naftiina xaggeeda wuxuu idinka yeelay aswaajan kuwa idinku lamaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamaya aayaddanna nicmooyinka ilaahay dadku ugu nicmeeyay baa weli la tirinayaa ilaahay waa midka naftiina xaggeeda idinka yeelay kuwa idinku lamaan waa haweenkii wey yacni haweenkii iyo raggii way isu baahan yihiin yacni raggii haween baa lagu lamaaniyey raggii haween bay u baahan yihiin haweenkii rag bay u baahan yihiin haddana waa dad yacni ilaahay uu kala siiyey khayr fara badan iyo awlaad iyo dhaqan iyo ma aragtay marka ilaahay wuxuu yihi wallahu ilaahay jacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay min anfusikum naftiina xaggeeda aswaajan kuwa idinku lamaan wa jacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay min aswaajikum kuwii idinku lamaana xaggeeda haweenkii xaggoodii wuxuu idinkaga yeelay baniina wiilal iyo xafadatan ma aragtay yacni ma aragtay kuwa dhega nugul xafada waxaa la yihahdaa awlaad lawlaad ilmahaaga aada dhashay ilmaha ay dhaleen baa axfaad la yihahdaa marka ilmaha matalan awowga u tahay ama haweenin ay ayeeye u tahay ayaa waxaa la yihahdaa axfaad la yihahdaa marka xafada dhega nugul bay mufasiriinta ay yihaahdeen macnaheedu waxay tahay baa la yihahda ilmaha aada awowga u tahay waxay u badan tahay inay kaaga dhega nugul yihiin ku aada dhashay xagga khidmada iyo dhega nuglaanta iyo xagga sidaas marka sidaasa maarata xafada yani kuwa dhega nugul ama awlaadda aada dhashay awlaadooda ayuu ilaahay idin maaratay idinka ahaysiiye wey warazaqakum ilaahay wuxuu idinka yani maarata wuxuu idinka arsuqay oo risqi idinka siiyey min aayibaati waxa wanaagsan oo dhan miraha iyo xubuubka iyo oo dhan buu ilaahay risqi idinka siiyey xayawaanaadka aada gowracataan oo hilbooda cuntaan intaasoo nicmo ah ma aqoonsanaysaan miya ilaahay baa awlaad idin siiyey xaasaskiina allah idin siiyey awlaadooda allah idin siiyey risqiga aad cunaysaan allah idin siiyey afa bilbaatili ma baatil bay yu'minuuna rumaynayaan oo wa binicmati illaahi ilaahay nicmadiisana hum ayagu yakfuruuna ku kufrinayaan ma baatil bay rumaynayaan oo ilaahay wax inay garab dhigaan miyay rumaynayaan sanam iyo muxuu ahaa wax kaloo lala caabudo iyo bani aadam iyo wax lamid a wayakfuruuna biraxmaan allaha raxmaankana ay ku gaaloobayaan miya macnaha waxay ka dhigan tahay yacni ilaahay sidaa ugu nicmeeyey inay nicmada ku aqoonsan waayaan maxay u dhacday afa bilbaatili miyay yu'minuuna rumaynayaan wa binicmati illaahina hum ayagu yakfuruuna ay ku gaaloobayaan wayacbuduuna way caabudayaan mushrikiintii min duuni illahi ilahay sukadiisi bay caabudayaan maa shay bay caabudayaan laa yamliku aan milkinaynin lahum ayaga aan u milkin karin risqan risqi risqiga ilaahay xaggiibuu ka yimid cid aan risqi siin karin roob aan keeni karin dhulka cid aan waxba kasoo saari karin yacni xoolo aan abuuri karin yaa ayay caabudayaan wayacbuduuna way caabudayaan min duuni illahi ilahay sukadii maabay caabudayaan shay oo laa yamliku aan milkinaynin lahum ayaga risqan risqi aan u milkinaynin oo min asamaawaati samaawaadka xaggeeda aan ugu milkinaynin risqi waalardi dhulka xaggiisa aan ugu milkinaynin shay-an shayna aan u milkinaynin yani risqan oo min asamaawaati waalardi aan milkinaynin shay-an shayna aan milkinaynin ayay ilaahay sokadiisa caabudayaan wey roob aan keeni karin dhulka wax kasoo saari karin walaa yastatiicuun mana ay awoodi karaanba waxaas ay caabudayaan inay sidaa yeelaan maba ay awoodi karaan ay laa yastatiicuuna laysa laha dalika walaa taqdiru calayhi low araadat inay roob keenaan hadday isku dayaan ma keeni karaan wax ilaahay sukadiisa la caabudo wey yani walaa yastatiicuuna mana ay awoodaan wey ma aragtay falaa tadribuu war hoy dadoo ha u yeelina lilahi ilaahi alamhaala jamcu mathal yani macnaa yani wax mathal ah ilaahay ha u yeelina waxaad ku shabahdaan ha u samaynina ood caabudaan haddaad waxaad caabuddo waxaad ka dhigan tahay adigoo ilaahay ku mathalay ilaah waaye haddaad tiraahdo sanam waxaad aad ku matashay ilaahay wax kaloo ilaahay ka sokeeye haddaad awood wixii ilaahay xaqa ulaha aad siiso ilaahay baad ku matashay falaa tadribuu lilahi alamhaal ilaahay ha u yeelina tusaale iyo waxaad ku matashaan oo aad ku shabahdaan ina allaha ilaahay yaclamu waa og yahay xaqaa'iqda oo dhan bu alla og yahay wa antum idinkuse laa taclamuuna garan maysaan
يعني قدرة عظمة وينك خالقة ما قرنيسان وحن الذين شيء جاي ووحير وعاد ما عرفت واحد الذين كون بالآمنة لكن حقيقة يعني إلهي سبحانه وتعالى عظمة ديسي ما فهم كرتان أنت سلنوفلا يعني قف كستو وح قرشير له عظمة إلهي وحكوفها مكرا كونكن ما قرتي آيات إلهي سبحانه وتعالى كبرايو سال إلهي أبرنا إلهي حكو برنينا بآياته ومخلوقاته آيات كيس ومخلوقاته آيات كان قرآن كأنه فسر إلهي وين كيس عظمة ديسة مخلوقات كيس أدون كان داتسا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون يعني ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير يعني إلهي سكا براي يعني أودي سيكو شيء آيات كيس أتكو بران لهيت أيوكو سكا براي لكن هذا دينتي آدم برانين وآدم عقلي كشقيسينين وآدم كفكرين الله سبحانه وتعالى وآدم عابدين حتى هذه مال وحد كسرتها يعني رنتي خطروي مرك إلهي سجى وحي يعني الحقائق ورن بوجه وأنتم إذنكم لا تعلمون قرن ما يسامو إلهي سبحانه وتعالى ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ضرب إلهي وحو يالي ضرب ويالي الله إلهي مثلا تصالح يالي عبدا أدوم إلهي تصالك يالي عبد قاسو مملوكا لليه ودد أيليهن عبد قاس أم أدون كاسو لا يقدر أن أوذن على شيء أن أوذن وحو أوذه لما أركه محايل إسوا مملوك وأدونوي سيد كيس وحو أمره أمبو يليا وحو أسجى أود أوليه هاي أو أسجى مثلا أسميسان كرمجره إلا وحو سيد كيس أمره ويانه إيه ومن مت رزقناه عن رزق سيني منا أنك حقنا رزقا عن سيني رزقي قاسو حسنا وناكسا رزقي ما سيني يعني وحن كدقني هذا ما كدقني رزقي أفرني فهو إسجى ينفق وبحنيا منه من هذا الرزق رزقي قاسي سرا سيهوس وجهرا سعد لبضب وأبحنيا هذا قفك رمن هوس بكسينيا dadkana ama si public ah uu bixinaya hal yastawun labadaasi ma simayeen midaan waxba haysanin ee isaguba shaqaale ah oo la leeyahay oo wax uu sameyn kara aan jirin illa sayidkiisa inuu amro mooyaane iyo mid xora oo isagu wuxuu rabo sameyn karo xoolana la siiyay xoolihiisana qofku rabo siin karo qofku rabo u diidi karo ma isku mid baa labada ma isku mid baa hal yastawun ma simayeen buu ilaahay subhanahu wa ta'ala لولا سمسمين معناه الوحي هل يستوي العبيد والأحرار الذي ضرب لهم المثل يعني الضومنك إيدتك حرت تصالها الله سوقاتي ما اسكم إدبا فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء والله تعالى له الملك وبيد الرزق أصنامت أموحا لعابدو أن إله السكديسة وحي كدقيهين الضومك للها وحبا أودي كريم allana waa midka awood iyo boqortooyo oo dhan leh gacantiisuna risqiga uu ku jiro oo sidoo rabo ugu tasarrufo kow rabo hodan ka dhigo kow rabo faqiir ka dhigo ma isku mid ma marka yani ilaahi iyo waxad garab dhigaysa ma isku mid ma aha alhamdulillah ilaahi ba mahad iskale inuu xaqi kala cadaaday way alhamdu mahad lillah ilaahi ba iskale inay cadaatay inay labadaas tusaale isku mid ahayn oo dadka mushrikiinta waxooda ay tahay safah inay ku socdaan aqli gaabi dadka muwaxidiinta ana aqli iyo iimaan inay ku socdaan bal aktharuhum dadka badankoodu se la ya'lamuna sida fahmi ma yanwi ولذلك dadka badankooda gaalay u bateen iimaankana waa nicma ilaahiya qofka tawxiidka inuu fahmo yani la uma baahna ama iimaanka ilaahi inuu fahamsi uma baahno aqli xadaafa ama muxuu ahaa yani liiraado عبقرية بروفيسور نم يقف كجامعات مكبحة ينتس أقوم شهادين بقات أمبان ونعمة من نعم الله ونعمة إلهية أو إلهي قفك وسينايو أو قف إسكع عامة أو وحبا أقون أو يا حضر كيس إيمان كيس إنه مارتي بورها ومارتي بربورينايو
حوج إيمان كيس كالسونيد إلهي كقبو جعلك إلهي وقبو وح بدن أو يقارن ونيجرن كم لقوش يا بروفيسور أما أقويهن دحار كيسا إنوسن وح وإيمانه أما أقون إلهية أوصل لهين أوصل كلا جرنين محل الله أبوري يحجين وصعدا أوصل كلا جرنين مركا حقي وكلا عدادي الحمد لله إلهي بس كلوي معنا ضرب الله إلهي ويا مثلا تصالح عبدا أدون مملوكا لليه ولا يقدر على شيء وحبا أودي كريم ومن مت رزقناه أن كأرزقني منا حقين رزقا حسنا أن كأرزقني رزق ولكن فهو ينفق منه سرا وجهرا رزقي حقي سيه وسيسي يعني عذب أبحية هل يستوون لبضع سمسمين مسمى الحمد لله إلهي بأسكاله بل أكثرهم ذاتك بدن كونسة لا يعلمون سيدا قرن ما يوي ضد يربع قونسنا يوي أرنتاس يدا وضرب الله إلهي وحكلو يالي مثلا تصالك لبو يالي الله سبحانه وتعالى رجلين لمن أي إلهي تصالك لغي أحدهما متكود أبكمو وياهي مت أفلا أبكم وحالي لذا قفك هذا الآن تقول الشيء وعن هذا الكريم يعني سنة تقول الشيء ما هذا الله هذا الملك مرك أبكم يقول ياهينا وحال الراعي أصم إنه يهيدنا وحنا مقلين مرك وحنا ما مقله ما له أبكموي لا يقدر أن أوذين على شيء أن أوذين وحوالله ما فهم سينكر السجو حكم ما فهم سينكر دنتي سكوم الشجنكر واحد وشيك تكفهم مايو لا يقدر على شيء بالكلية لأنه إما حجر أو شجر يحسد نجح كلام مالي علوي محايل قفك هديئه وهذا اللي كرنا وحي ربو الشيء جاي هدوك كم مقلي وحي وكم مقلي معبرة لكن دم هدو يعني نحن كنا مقلين كنا قرنين يعني محوها صاد وش يكتو أم وحوفهم سيسو مثلا مركز تصالح هذا وحلا جوضا لك حانت أي عابودة يان مثلا أما سلم كأي عابودة يان وحنا ما مقله ما نحضله ما قرتي لا يقدر على شيء وهو كاسي كل وليس كياهي ها كل وليس كياهي على مولاه أي على وليه أو سيده سيد كيسي أما كيلها أي وحكيها وليس يعني مثلا معناه معيتها السجع أباهن إلا نقالي السجع أباهن إلا نقالي هذا قف أبكما وأصمأ السجع أباهن إلا نقالي أو وح أورون الله شيء أو عنتدي الله كانوا أو مسخشي لقيه سيدو كلا سلام كان عابوديان أيجا مرة والبابا ترتراي أو مرة حد ما حمرنا يان سليد مرنا أو مرة بابا عرفتي معها سجوح دقائق أو حضلا أو معها مركا إلهي وحيري وهو كل وياي ثقيل مد عليس كوا على مولاه سيد كيسي أينما مال الله يوجه ووجهه سيدكي هو كاسي لا يأتي بخير خير لما يماده يعني مال الله ماشي لوجهه وحن سميه دين هذا صو سمين مايو ومحايل ما بيقام ما أوضه ما دقائق كربه أي لم ينجح في مسعاه لأنه أخرس بليد ضعيف قفا وحن فهمين عقلي عن لحين يعني ذات ترى هلك هوش أي سوقبه هو ما سوقبنا أينما مال الله يوجه ووجهه وودره هو كاسي يوجه وودره سيدك هو كاسي لا يأتي لما يماذا بخير وناك لما يماذا هل يستوي كا ملس مياه هل يستوي هو كالا صوت شيء ملمت با ومن قف يأمر أمريا بالعدل سيدة توصن دتك وشيغاي او دتك wax wanaagsan u tilmaamay وهو isagana على صراط ودد شيء كسغان مستقيم او توصن way kaas iyo mid ma aragtay طريق xaq haysta oo isaga nuur uu ifsado uu ka horeeyo oo isagana uu toosan yahay waxa uu dadku sheegayna wax sax ay yihiin ma isku mid ba labada isku mid ma ahayn marka macnaheedu waxay tahay fa kayfa يمكن التسوية بين سنن أو حجر سنن يدقح وبين الله سبحانه وتعالى إلهي إلا سما السيء العظيم إله سوء القادر العليم أود له أو عقونت له الهادي إلى الصراط المستقيم ودد التوصل دت كهنوني سيدو كلا وح والبو إلهي اللي جرب ليجو ووح عجز عن أود أما يعني أود دوش شك توحي محدود أيين مركا لما جرب ليجي كرم ولا ما سين كروح الله سبحانه وتعالى ولها halka waxa kaaga cadaatay suuradu sida ay xoog u saarayso tawxiidka
iyo iimaanka iyo dadka caqiidadooda inay xoojiyaan iyo kalsoonida alla ku qabaan iyo xubbiga ay yani ilaahay ay jecel yihiin ay noqoto inuu ka sara marto wax walbaba oo ilaahoodii keliya ay caabudaan oo cibaadada ay u khaalis yeelaan wey walilaahi ilaahay ba keliya unbaa u sugnaaday haybu samaawaati samaawaadka dhexdooda waxa ku qarsoon iyo walardi dhulka dhexdiisa waxa ku qarsoon ilaahay keliya unbaa iska leh yacni macnaha cilmu lgaybi lilahi subxaanahu watacaala waxa samada ku qarsoon iyo waxa arada ku qarsoon iyo waxa berri imaan doono oo dhan ilaahay cilmigaas ilaahay unba u gaar yahay oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyay fi suurati naml qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah yacni dadka samaawaadkii arlada waxa jooga o dhan hayb ma oga ilaa allah mooyaane cilmigaasi marka waxa qarsoon ilaa ilaahay wuxuu waxyaabaha qeybka ah uu ka ogeysiiyey ambiyadiisa ama rusushiisa qeyb kamida wuxuu ka ogeysiiyey waa gaar amaa cilmu lgayb yani calaa itlaaqihi ilaahay unbaa awood uleh isaga unbaa og qofkii sheegta cilmu lgayb inuu og yahay yani qofkaasi waa qof gaaloobaya wey qofkii ictiqaadiyana qof kale oo aan alla ahayn cilmu lgayb inuu og yahayna isagana wuu ku gaaloobaya maxaa yeelay haddaad tiraahdo yani weliga fulana qeybku og yahay oo maaragtay waxa soo socda buu og yahay oo maaragtay jannadu igelin karaa waxyaabahaas haddaad ictiqaadiso waxaad ka dhigan tahay inaad booskii ilaahay aada dhigtay yani qofkaas adiga aad sidaa u ictiqaadisay wa hada shirkiga hadda laga hadlayay ayaad markaasi ku dhacaysaa wey inaad sinto ilaahay iyo keyrkii marka ilaahay wuxuu yidhi wamaa amru saacati saacadda amarkeedii ma ahaanin ilaa kalamxi lbasar ilbiriqsi oo kale maahane yani dhicitaankeeda inuu waqtiga ilaahay uu ridayo inay yani mathalan huwa aqrab amase kaba dhow ha wamaa amru saacati ay maa sha'nu saacati fi surcati lmaji saacadda imaashaheeda xagga degdegta imaashaheedu sida ishaada markay libiqsato oo kale isha markaad adiga isha daa'iman sida uma soo taagnaan karto way libiqsanaysaa inta ay ka libiqsato surcada ay la eg tahay intaasoo kale inay ku timaado ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala yani u awoodaa wey amaba in ka dhow intaas macnaheedu waxa weeye ilaahay haddii uu doono wax inay ahaadaan wuxuu yidhahdaa kun fayakunu wuuna ahaadaa wey marka wamaa sha'nu saacati fi surcati lmaji yani saacaddan aad leedihiin goorma imaanaysaa wax badan bay nabiga weydiiyeen ilahayna uu leey yas'aluunaka can isaacati ayaana mursaaha saacadda goormay dhacaysaa waxaasay weydiiyeen marka taas waxaa loo sheegaya horta waqtiga ay imaanaysa ilaahay agtiisay ahaatay laakiin imaanshaheedu yani macnaheedu markay yani arrinkeedu markay imaanayso ilaa kalamxi lbasar ilbiriqsi oo kale oo huwa aqrab ama ka dhow ayay maarata xagga surcada ay noqonaysaa wey ina allaha ilahay calaa kulli shayin shay kulligii qadiirun allihii awooday wax walbo alle subxaana wa tacaala uu awoodaa wey shay walbo alle subxana wa tacala awoodo ay gaalada beeninayso wallahu ilaahay akhraja waa soo saaray kum idinku waa idin soo saaray wallahu ilaahay baa akhrajakum idin soo saaray min butuuni ummahaatikum hooyooyinkiina calooshoodii buu idinka soo saaray laa taclamuuna shay-a idinkoon waxba garanayn qof cilmi la dhashay ma jiro qof aqoon la dhashay ma jiro qof qur-aanka isagoo xafisan la dhashay ma jiro idinkoon waxba aqoonin baad caloosha hooyadiini ka soo baxdeen wa jacala ilaahay wuxuu idin yeelay lakum idinka assamca maqal waalabsaara arag waalafida caqli lacalakum waxaad mudantihiin tashkuruuna inaad ilaahay u shukrisaan wuxuu ilaahay idinku manaystay wasaa'ilu tacliim wixii wax lagu baran lahaa caqligii wax lagu garan lahaa indhihii wax lagu arki lahaa dhegihii wax lagu maqli lahaa nicmadaas ilaahay idin siiyey waxaa la rabaa in loo adeegsado wixii ilaahay uu jeclaa caqligan waxaa la rabaa in lagu garto ilaahay awooddiisa indhaha waxaa la rabaa in lagu fiiriyo qudrada ilaahay iyo awooddiisa qur-aanka lagu fiiriyo yani dhegaha in lagu dhegeysto qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala ama adoon waxba aqoonin baad dhalatay wasaa-ishaasina ilaahay baa ku siiyey berrina waad tegaysaa inaad u adeegsato dhegahaadina khayr waxaan lahayn aad ku dhegaysato indhahaadina waxaan fiicnayn aad ku fiirsato caqligaagana ummadda lagooyadeedii iyo dhibkeedii iyo ummadda maaragtay yani waxa sharteedi u anaad ka shaqayso waxay ku noqonaysaa midaan adiga ku hogto wey marka ilaahay baa idin siiyey intaasoo dhan lacalakum waxaad mudantihiin tashkuruuna inaad ilahay ugu shukrisaan nicmadaas wey wallahu ilaahay jacala lakum akhrajakum a idin soo saaray
min butuuni ummahaatikum buu idinka soo saaray hooyooyinkiina calooshood laa taclamuuna shay-an idinkum waxba garanaynin wajacala lakum asamca buu idin yeelay maqal walabsaara arag walaf-idata iyo caqli ma aragtay iyo qalbi lacalakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad ilaahay u shukrisaan oo nicmadaasi aada ugu shukrisaan wey yacni waqaliilun min cibaadiya ashakuur buu yihi alla subxana wa tacaala in yar oo addoomankayga ka mid a unbaa shukriya alam yarow miyaydan arkaynin dadow ila tayri shimbirka xaggii miyaydan arkaynin musakharaatin xaal ay tahay mid lagu sakhiray fii jawi samaa samada jawigeeda mid lagu sakhiray yacni hawadaasay duulaysaa shimbir weynin badan oo 5 kiilo 3 kiilo 4 kiilo hawadaasi buu duulaya yaa ku hay wayumsiku asamaa an taqaaca cala alard ilaa biidni sida ilaahay samada uuga haya dhulka inay kusoo dhacdo isagaa ku haya hawadaasi ay duulayso ayna soo dhacaynin marka fii jawi samaa maa yumsikuhunna ilaahay yani maa yumsikuhunna ma hayo oo kama hayo shimbirahaasi duulaya inay soo dhacaan ila allah alla mooyaane maa yumsikuhunna ma hayo cinda asuquudi can asuquudi cinda qabdi ajnixatihina weliba markay duulayaan marna waxay fidiyaan baalasha marna way laabaan ayagoo intay sidaa isugu laabaan bay iska duulayaan marna yani baalashaba haddii baalasha caawiya oo haddii la dhihi lahaa baalashii bay laabayaan fi suurati lmulk ilahi subxaana wa tacaala awalam yarow ila atayri fawqahum saafaatin wayaqbidn maa yumsikuhuna ila araxmaan inahu bikuli shayin basiir marka ilaahay baa ku haya wey markay yani baalashooda ay fidiyaan ama ay laabayaan maa yumsikuhuna ila allah ina fi dalika aayaadkaa lasoo sheegay calaamadaha cadcad ee tusay ilaahay waxdaaniyadiisa laayaatin aayaad baa ku sugan liqowmin qole ugu sugan tahay yu'minuuna rumaynaya alla subxaana wa tacaala u fiirsada walaalayaalow liqowmin yatafakkaruuna liqowmin yacqiluuna liqowmin yu'minuuna yacni dad iimaan leh dad caqli leh dad fekeraya caqligan ilahay wuxuu noo siiyey inaan ku fekerno wax ku garanno haddii waxa lagu gartaaba uu yahay adduunye keliya oo aan aakhiraba lagu garanaynin bi'sa alcaqlu hada alcaql caqli marka kaasa u baasleh laakiin caqliga haddii uu garto ma aragtay in aakhiro ay jirto in la dhimanayo in laisxisaabin doono adduunku inuu yahay temporary ima muaqad sidaas dadka saalixiinta ay fahmeen oo kale ina lilahi cibaadan futana طلqوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا ninkii shaacirka uu yidhi addoomanka ilaahay wuxuu leeyahay addoomankaasoo طلqوا الدنيا adduunyadii iska furay adduunyadii bay fureen way fureen sida haween la furay oo kale adduunkii bay fureen وخافوا الفتنة fitnadeedina way ka baqeen macnaheedu waxa weeye isma ayna siinin isuma dhiibin caqligooda o dhan adduunka ma gelin aakhira ay xasuusan yihin nadaruu fiiha falamaa calimuu markay fiiriyeen xaaladeedii ogaadeen sida ay dadka u lugoyso ay ogaadeen ya nadaruu falamaa calimuu annaha laysat lixayin watana qof nolol raba meeshiis inayan ahayn markay ogaadeen jacaluuha lujatan waxay ka dhigteen buu yidhi doon bay ka dhigteen jacaluuha waxay ka yeesheen lujatan bad bay ka dhigteen waittakhaduu waxayna ka samaysteen saalix alacmaali acmaasha suuban iyo cibaadada ilaahay fiihaa baddaasi dhexdeeda sufanaa doontay kaga gudbi lahaayeen oo jannada iyo aakhira ugu gudbi lahayeen taas bay ka dhigteen marka waxaa la rabaa in sidaas loo fahmo awoodda ilaahay subxaana wa tacaala laga fikiro yacni ilaahay subxaana wa tacaala la barto weli aayaadkii way sii socdaan yani insha allahu oo cajaa'ibta suuradda wallahu jacala lakum min buyuutikum sakana waxaan ka bilaabi doonaa in sha allahu casharka xiga hadduu alla yihahdo baaraka allahu fiikum jazakum allahu khayr intaas ha inoo joogo hada wabillahi tawfiq assalaamu calaykum waraxmat ullah